kulanti wanaagsan. wararka imika naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd magaalada Muqdisho lagu dilay wasiirkii hawlaha guud ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabbaas Siraaji. wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka ay toogteen ciidamada dawladda Soomaaliya kadib markii ay ka shakiyeen sida la sheegay. wasiirka Cabbaas Siraaji ayaa waxa uu ahaa wasiirka ugu da'da yar ee wasiirada amaba dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya. wixii arintaasi ka soo kordha hadii la yiraahdo waxaanu idinku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta Arbacadii gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. booqashadan madaxweyne Farmaajo oo indhaha si weyn loogu hayay goorta ay dhici doonto ayaa markii uu gaaray magaalada Addis Ababa waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar. warbixinta waxa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Ahmed. مسؤولينta ugu sareysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo uu helinayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo booqasho hawleed ku soo gaaray dalkan Itoobiya. soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa kooxaha dhaqanka ee dawlad deegaanada dalka oo ay ka dhex muuqdaan kooxaha fanka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inta uu dalka joogo inuu kulamo kala duwan oo lagu sii xoojinayo cilaaqaadka labada dal uu la qaato. booqashadan madaxweyne Farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminaya ay maanta Arbacadii ku tageen magaalada Addis Ababa oo la sii saadaalinayay goorta ay dhici doonto ayaa waxa loo arkaa mid muhiimad aad u weyn u leh dalka Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. madaxweynaashii ka horeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan booqashooyinkooda ay dabadda ugu baxaan waxa ay ugu hortagi jireen waddanka Itoobiya. hase ahaatee madaxweyne Farmaajo koorintii booqashadan maanta aanu ku tagin magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu hore u soo booqday 5 waddan oo kale. booqashada Farmaajo ayaa muhiimadeedu waxa loo arkaa inay tahay mid aad u weyn isla markaasna waxa loo arkaa in wada hadallo adag ay yeelan doonaan dawladda waddanka Itoobiya oo kamid ah dawladaha midowga Afrika ee ciidamadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya. dawladda Itoobiya ayaa walaac weyn ka qabta waxyaabaha ilaa 22 sanadood ee tagay ka dhacay dalka Soomaaliya si weyn indhaha ugu haysay. xilligii lagu jiray doorashooyinka madaxweynenimada ee Soomaaliya ayaa dawladda Itoobiya waxa loo arkayay inay door bidaysay in doorashadaasi uu ku soo baxo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana imika leeyahay waxa ka soo bixi doona booqashada Farmaajo uu ku tagay waddanka Itoobiya. madaxweyne Farmaajo intii aanu maanta ka amba bixin magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo booqday xero ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah oo aan ka dheerayn xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. xeradaasi oo loo yaqaano xerada sayidka waxa ku jira kumanaan qof oo barakacayaal madaxweynuhuna wuxuu u geeyay alaabo uu ku taageerayay. warbixinta waxa noo soo diray Sakriye Maxamuud. madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa subaxnimadii saakay waxa uu booqday xero barakacayaal oo ku taala sayidka ee magaalada Muqdisho. waxaa ku nool boqolaal dad danyar ah kuwa oo qaarkood aan haysanin meel ay ka galaan roobka iyo qorraxda. waxaana madaxweynaha uu gaarsiiyay deeq bacaha oo ay ku dhistaan guryaha ka samaysan cooshadaha. kadib madaxweynaha ayaa ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana uu duulay dalka Itoobiya halkaasi oo shirar kala duwan uu la qaadan doona madaxda dalka Itoobiya. Zakariya Maxamuud Timcadde, Universal TV, Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho isaguna ku soo xidhay shir 2 maalmood socday oo lagu eegayay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh ayaa warbixinta noo soo diray.
kulankan oo muddo 2 cisho ah ka socday magaalada Muqdisho ay soo qaban qaabisay xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana loogu magac daray dardargelinta waxqabadka xukuumadda waxa goobjoog ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qare iyadoo sidoo kale kulankaasi lagu casuumay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdulla Cawad. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in golaha shacabka ay diyaar u yihiin sidii ay wada shaqeyn u dhaxmari lahayd iyaga iyo xukuumadda si loo dardargeliyo howlaha loo qabanayo shacabka. waa maxay wasaaradda adiga lagu aaminay portfolio-da mas'uuliyadda dastuuriyan mas'uulka ma aha رئيس الوزراء شغل يسوي وحاول coordination يسوي portfolio ينكوين لكن هذيك أو قالن مركز وزارة داسي وام هاي وزارة أنا هذيك اللي ودي ذي حلقة أثرتنا تجارسيسه مدة الحين تا أو 4 سنة هذا 6 سنة يقعد هذا نوع حرتي إلى ساعته هو بس عديس تقول كجار لو كنت تضوي طبعا كإن قف ساعات عاد هاي ستة كل شيء ناس لو سنة ساعته إن الدجسته ورئيس الوزراء كسوان سياسته كبعدين النورتي معده عم قدير بعد بس النورتي معدان أسميستان ولقم مرمى intii kulankaasi socday waxa ay wasiirada isku qaybiyeen qayb si ay u lafaguraan ujeedka kulankooda iyo waxa ay tahay in la abaaro iyo sidoo kale sida loogu adeegi karo shacabka. ugu dambeyn waxa kulankaasi oo markii hore uu furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qare ayaa soo xiray isagoo dhiirigeliyay hawsha ay qabteen golaha wasiirada. adduunyada waan u baahanahay inaan la shaqeynano waa muhiim wax badanna way noo tareen Soomaaliyana way ku dadaaleen laakiin adduunyada haddaad rabtaan inay si wanaagsan noola shaqeyso kow waa inaan gudaheena ka shaqeyno qofna ku jeclaan mayso haddii dadkaadu aanay ku jeclayn qofna ku ixtiraami mayso haddaadan adigu is ixtiraamin qofna wax kugu aamini mayso haddaadan adigu is aamini karin sidaas daraadeed inta aanan adduunyada eegin ka hor waa inaan anagu saagnaa laakiin waa muhiim inaan niraahdaa yaan ku tashanaa haddii dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga iyo dibadda aanayna aamini karin annaga maxay noo aaminayaan kuwa qaarada kala jooga oo aan dhiiggeena lahayn sidaas darteed ay muhiim u tahay dawlad wanaag in laga shaqeeyo sidaas darteed ay muhiim u tahay in xoolaha dalka oo nala ku aaminay aan aaminaadooda annagu mas'uul ka noqono dadka Soomaaliyeedna aan u sameeyno qaab ay nagula xisaabtamaan. Maxamed Cabdinaasir Ayaan, Universal TV, magaalada Muqdisho. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kalsooni weyn ka muujiyay in haddii si xoog la isu kaashadaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya ay markaasi ka adkaan karayaan argagixisada. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay labadaasi wadan ay isku dooni saaran yihiin khaasatan marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha kale ee waaweyn ee labadaasi wadan hor yaala waqtigan xaadirka isagoo ka hadlayay maalintii salaasadii magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa waqtigaasi uu sii sagootinayay danjirihii hore ee wadanka Soomaaliya uu joogay magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan oo isagu imika ka mid noqday golaha wasaaradda cusub ee dalka Soomaaliya waxaana madaxweyne Kenyatta uu sheegay in loo baahan yahay in labadaasi wadan ay si weyn isaga kaashadaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada ammaanka isu socodka dadka oo uu sheegay inuu damacsan yahay in goobo cayiman laga sameeyo oo laga talaabo xadka u dhaxeeya labadaasi wadan waxaana uu sheegay oo kale in loo baahan yahay in la xoojiyo ganacsiga sharciga ah ee u kala gudbo labadaasi wadan. xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaasna ganacsade weyn oo caan ka ahaa dalka Soomaaliya Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa loo doortay oo ku guuleystay doorashooyinkii madaxweynenimada ee maamul goboleedka Galmudug. munaasabad ballaaran oo halkaasi ka dhacday ayaa waxa isagu ka hadlay
master xaaf lafahaantiisa. warbixintanna waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed maxamuud awaadan. doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta ka dhacda magaalada Cadaado ayaa waxaa isku soo sharaxay 3 musharax oo kala ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Cabdulqaadir Maxamed Shirwac iyo Axmed Shariif Cali Hiloole, iyadoona goobta ay ka dhacayso doorashada ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo mas'uuliyiin kale. xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ka kooban 89 xildhibaan ayaa bilaabay inay u codeeyaan 3 musharax, waxaana wareegga labaad u soo gudbay Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Axmed Shariif Cali Hiloole. wareegga labaad ee doorashada markay soo dhamaatay ayaa natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir. 34 cod ayuu helay Axmed Shariif. Axmed Ducaale Xaaf waxa uu helay 54 ayuu helay oo cod. hal cod oo ka midana waa xumaaday sida arkaysan sida darteed ayay waxay ku noqdeen 89 cod waxaana guusha ay ku raacday Axmed Ducaale. Axmed Shariif Cali Hiloole oo musharaxii looga adkaaday wareegga labaad ayaa sheegay inuu la shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. doorashada quruxda badan xogta xalaasha sida nabadda ku dhacday hambalyan aniguna waa la shaqeyn doonaa haddii allaha waddan ogolaado. khudbadda musharaxaasi kadib ayaa goobta waxaa lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf, kaasoo dhaarinta kadib sheegay in tillaabooyinka ugu horeeya uu qaadayo ay qayb ka noqonayaan keenista maamulka Ahlusunna, isagoona ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in la gacan siiyo maamulka galmudug. inaan u qalab qaadano inaan xabad dambe galmudug ka dhigno nabadeyn iyo dib u heshiisiin iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheeda oo dhan. ilaahay saasaan ka baryahayaa wayna noqon doontaa ilaahay idankii waa Ahlusunna. aad iyo aad baan maaragtay u soo dhaweynaynaa walaalahay, waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nagula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doono ilaahay idankii. intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka rajaynayaa inay gacan la siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa u hambaliyay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug. waxaa hor yaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqo aad u adag. waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhuusamareeb iyo Ahlusunna oo wada hadalkii uu hadda lagu soo kala yimid. waa muhiim in albaabka nabaddu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa. madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf ayaa waxyaabaha la doonayay inuu wax ka qabto waxaa ka mid ah heshiiska Ahlusunna iyo sidoo kale inuu gacanta soo galsho dhammaan deegaanada ka maqan dowlad goboleedka galmudug. maxamed maxamuud awaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. maalinta saxaafadda caalamka ayaa maanta laga xusay dunida oo dhan. waddanka Soomaaliyana waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ee aad u adag tahay in saxafiyiintu ay ku shaqeeyaan, iyadoo sababtuna ay tahay kooxaha kacdoonada ka wada dalka Soomaaliya ee ururka Al-Shabaab oo kale. dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya ee saxafiyiinta soo food saara ayaa wajiyo badan leh. magaalada Muqdisho ayaa maanta laga xusay maalinta saxaafadda adduunka oo arrimahaasna lagu soo hadal qaaday. waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir ayaan leh. dunida oo dhan ayaa maanta oo kale laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda hadalka. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada laga xusay. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad ay soo qaban qaabiyeen ururka suxufiyiinta Nusaj, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo boqolaal saxafiyiin oo ka howlgala warbaahinta kala duwan ee magaalada Muqdisho. ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj, Maxamed Ibraahim Macalimu. saxaafaddu inay xor noqoto
ku horumarinaysaa waddankan tubtii toosnayd haddii si saxa loo raaco sidaa darteed waxaa la rabaa in warbaahintu ay noqoto mid mas-uula oo shaqada weyn ee ummadda ay u hayaan ka run sheega oo aanay noqon dad beenta iyo maaragtay dad isku dirka iyo fidnada ka shaqeeya taasaana maaragtay keeni karta in dalku uu horumar uu sameeyo sidoo kale dhinaca dawladda iyadana waxaa laga rabaa inaynan u arkin saxaafadda iyo xorriyadda saxaafadda mid qaldan sababtoo ah qofka masuqmaasuq samaynaya haddii la sheego waxay ila tahay sidoo kale waxay gacan ka siinaysaa dawladdii inay fahamto waxa socda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso ayaa goobta ka hadlay. Waxaan ku hambalyeynaa maalinta xorriyadda qowlka oo maanta loo dabaaldegay. Waa maalin caalami ah, khaas ahaan waa maalin ummadda Soomaaliyeed saxafiyiinteeda si gaar ah u saameynaysa. Soomaaliya saxaafad baa ka hana qaaday. Saxaafad xor ah ka hana qaaday. laakiin u baahan in la saxsaxo haddii ay noqon lahayd dhinaca xukuumadda iyo haddii ay noqon lahayd dhinaca saxaafaddaba in la buuxiyo qaalinkeeda marka koowaad horta waa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inuu maanta jiro sharcigii saxaafadda oo muddo badan la sugaayay muddo badan laga shaqaynayay muddo badan caqabado ahaa wax kasta oo bini aadan uu sameeyana kulley nusqaan iyo dhamaystiran la'aan iyo waa laga helayaa wasiirkuna wuxuu ballan qaaday sidaan la soconno in dhamaystiri doono ama amendment ama qaab lagu noqon doono waxyaabaha yaryar oo ka khaldan la sixi karo laakiin waa sharci maanta uu saxaafaddu leedahay ummadda Soomaaliyeed u yaala oo lagu dhaqmo marxaladan waddanka uu ku jiro oo xogaa aad moodo in dagaaladii sokeeye iyo intii ka dambeysayba ee dhibaatooyin fara badan soo gaarayeen suxufiyiinta Soomaaliyeed haddana inaan maanta joogno marxalad runtii aad uga sarreysa marxaladihii hore noogana baahan inaan dhaqankeennii iyo shuruucdeennii aan annaga naftirkeena ilaashano waxaa kaloo jirto siduu xeer ilaaliyaha u sheegay dastuurka qaranka ayaaba qodobkii 18 si cad u qeexaya in xorriyadda hadalka iyo fikirkaba ay tahay wax muxuu ahaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah xaq u leeyahay sidaas xuquuqdaas la siiyay qofka muwaadinka haddana iyadana waxaa jirta waajibaad laga rabo qofku marka la leeyahay xor baa tahay waa hadli kartaa macnaheedu ma aha waxaad doontaa sheegi kartaa maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho maalinta xuquuqda saxaafadda caalamka ayaa waxaa sidoo kale laga xusay magaalada Baydhabo warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha iyaga halkaas nooga soo warrama wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed odayaasha dhaqanka xubno ka socday aqoon-yahanada ururada bulshada madaxda warbaahinta iyo wariyaal ku sugan magaalada Baydhabo ayaa ka qayb galay xuska maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo 3 May ku beegan mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ah khabiir saxaafadeed luul isxaaq aadan iyo malaaq daro yacquub oo kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa hadallo ka kooban goobta ka jeediyay markuu sanadku ahaa 1948 waxaa jiray shir loo dhan yahay oo ay isugu yimaadeen dhammaan jimciyadaha qurumaha ka dhaxaysa kaasoo lagu soo saaray wax la yiraahdo International Human Declaration waxaa jiray marka qodob ka 19aad oo article ka mid ah markaas meel la sii dhigay oo ahaa in ay saxaafaddana qayb ka noqoto waxyaabaha loo baahan yahay markaas inay helaan xorriyatul qowl aad u fara badan maadaama uu jiray waqtigaasi dagaalo fara badan iyo hujuum loo geysanayo bini aadanka qaybihiisa kala duwan marka maanta oo kale marka waxaa loo asteeyay in la xuso horaantii 1993 taasoo ku beegneed maalintii si rasmi ah loo aqoonsaday inay noqoto maalinta xorriyatul qowlka adduunka sababtana waxa ay ku timid waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo loo geysanayay wariyaasha kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinka faraha badan ee ummadaha adduunka ku socday xaflad caalami ah oo baxda saxaafadda oo dhan maalintii xurnimada xorriyatul qowlka iyo qaadan la xusaw 3 May markan koreedeedaan ka faraasana markii higdaan siin kaambaleeyaan sanadkan sanadii isan iyo nay awlaadin ibilaantin iyo nay guud ahaan iyo gaar ahaan koonfur galbeed wariyaalshooda iyo bashbash iyo barwaago karooan ilaahayna deersay
madheena suxufi hiring oo stationka ka jar la leelan doodo wili dhigtay madheegna suxufi oo war ah duufaday wal hanagi misol hadugudi lilay madheegna taasna may bak amaanana dawladda qaasatan wasiirka warfaafinta landhiibi oo lan eedan dulqaad badan way barahaayna cabdibilyaalka quraan birsho iyo dagaal in la gala doono ogin raashin la qiibay leeyahay shacabkiina walan jeey cabdibilyaal quraan way ba anta goob joog ku ah dad shilgali oo iyo kaamarada iyo shal dhunti basuuka kor ku maray haddana aan surun in iyo shaqeeyaan walkasta adduunka lagu wado ama saxaafad haatay ama meel xafiis laga shaqeeyo haatay ama walkasta may boo ethics jar ethics may boo in sheegada oo maarne waxyaabaha la maro may boo ya jaran oo la isticmaalo marka saxaafadda waxyaabaha kaliya wala burburi karo oo may boo in sheegada wala dhisi karo oo dhinaca positive dhinaca negative may boo la isticmaalo karo laakiin wadan kasta ama state kasta dhisan may kiirin horumarsha kiirin yahay si maalinka saxaafadda aan la shaqeeyay ama saxaafad may boo maarin intabiid dhinaca maalinsan dhinaca maarin oo in sheegada oo positive aan ka tabiid wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa dhankiisa hambaliyay maalintan caalamiga ah magaalada baydhabo lagu xusay maalintan hase yeeshee maanta waxaan u maleynayaa xoogaa inay ka yara duwan tahay waa markii ugu horeysay ee wariyaasha Soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed Soomaaliya iyagoo gudoomiye ku xigeen kale dhulka suxufiyiinta Soomaaliyeed ay si wada jir ay u xusaan farxadaas waxaan u maleynayaa horba looma xusi jirin markaan helay hoggaan matala dadkan reer koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca wariyaasha inay suurtagal inoo noqotay inaan maanta magaalada baydhabo ku xusno inta kadib dabcan sida horeba loo sheegay dad badan oo aqoon-yahano ah iyo akhyaaraba ay sheegeen saxaafaddu adduunyada waxa la tilmaamaa marka laga hadlayo dagaalka jira ama qaabka la isu weeraro saxaafaddu inay tahay waqtigan qarnigan maanta la jooga hubka ugu casrisan uguna fudud ee adduunyada la isku weeraro waxaan ognahay waxaa burburay Soomaaliya dawladnimadeedii muddadii 21 sano ahayd ama 27 sano aan iraahday waxaa burburay kaliya ma ahayn dawladnimada Soomaaliyeed waxaa burburay wax walba ummadda Soomaaliyeed ay u baahnayd muxuddin xusni universal TV baydhabo murashaxa doorashooyinka madaxweynenimada ee xisbiga mucaaradka ee Somaliland ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay dacwadda wali ku socota qaar ka mid ah madaxda xisbigaasi wadani oo ka socota maxkamadda magaalada Hargeysa wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Hargeysa Mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa warbixinta noo soo diray madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta ka qayb galay dhageysiga labaad ee dacwadda loo haysto mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo muddooyinkii u dambeeyayba ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Hargeysa waxa uu Cabdiraxmaan Ciro sheegay inaanay jirin eed rasmi ah oo loo haysto mas'uuliyiintaasi loona baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadooda dib loogu soo celiyo maanta waxaanu dhageysanay markhaatigii koowaad waxa noo muuqatay inaan wax cadayna markhaatiyada qaarkood markaanu dhageysanay aanay loo haynin mas-uuliyiinta xisbiga wax fal ama markhaati intii aanu dhegeysanaynin ku caddeeyey dembi ma jirin arrintaasi waxaa noo caddaatay inaanay jirin haba yaraatee wax faldembiyeedu halkaa nooga muuqday waxaanu ugu baaqaynaa garsoorka inaanay u dabcin faragelinta xukuumadda waa inay madax bannaanadaan dastuurka madax banneeyey qofkii dembi gala waa ku qaadi karaan laakiin kees la siyaasadeeyey ama mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ha noqdo ama saxaafadda ha ka soo jeedo waxaan ugu baaqaynaa inaan la siyaasadayn muwaadin kasta xorriyadiisa lagama qaadi karo ilaa dembi lagu caddeeyo iminka muddo bila bay xidhan yihiin wax dembi ah oo lagu caddeeyeyna ma jirto anigu hal marag baan dhegeystay wuxuu nimankaana garan maayo weligeyna maan arag waxay sameeyeenna maan ogeyn haddana markhaati baa loo soo kaxaysta marka waxaan leenahay cadaaladana ha loo daayiyo inay cadaaladda xukunto inay baadhaan xaq bay u leeyihiin
axsaabta mucaaradkana waajibkooday gubanayaan oo inay xukuumadda toosiyaan ay dhaliilaan waxaanu jecelnahay inaanu si wanaagsan ula shaqayno ciidanka ammaanka somalilan ciidanka booliska iyo ciidamada kale amnigaba wax colaadoo ka dhaxaysa cidnaba iyo waddani ma jirto waajibkooda shaqo baanu ku taageeraynaa ciidanka waxaanu jecelnahay inaanu si wanaagsan ula wada shaqayno ula falgalno waxaan uga digaynaa xukuumadda inaanay shaqada booliska siyaasadaynin oo amaro khaldan la siinin oo dembiye aan jirin samayntooda laga daayo gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan cabdiqaadir jirde ayaa isaguna geestiisa waa xukuumadda somalilan ugu baaqay inay dhex u aato musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimada ee somalilan uu soo maray xisbiga kulmiye mucaarad uu soo maray annaga oo xisaabta kale ah oo xisbil xaakimkiia ayaanu ka dhiidhiyi jiray qaladka lagula kaco waxaa jirtay mar xafiiskooda la baadhay oo laga baadhay idaacad oo la tegey raggii ugu horreeye tegey anigoo xisbiga udub ka socda xaruntooda ugu tegey ee la saftay ee diiday in lagu xadgudbo ayaan ka mid ahaa waxaa jirtay maalintay u dabaaldegayeen abril lixdii maalintaasna la asaasay ay xafiiskooda ku qabsadeen bilayska lasoo hordhoobay raggii ka hadlay ee dhiidhiyey ee diiday baan ahaa ee yidhi xaq looguma laha in xaruntooda ciidan bilays la geeyo markii xabadda lagu ridayna raggii diiday baanu hayn in axmed maxamed siiraanyo aanu geyn in rasaas laga dul rido waxaan ku tilmaamay weliba inuu inoo yahay saddexda musharaxba maanta saddexda musharaxba maanta waxa weeye madaxweyneyaalkayda mid soo bixi doona ilaahay baa wuxuu leeyahay xurmada madaxweynaha qabsanaya uu leeyahay mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london weli waxaa inoo soo socota warar dheeraada oo aanu idinka hayno dilka magaalada muqdisho goor dhoweed lagu dilay wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya allah u naxariistay cabaas siraaji iyo sida uu u dhacay laakiin aan ku horreynay magaalada buuhoodle waxaa maanta gaadhay wasiirka caafimaadka ee somalilan saleebaan ciise axmed xagle toosiye dhowrkii maalmood ee tegey ayaa waxaa ku sugnaa magaalada buuhoodle madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland booqashadan haddaba xagle toosiye waxaa nooga soo waramay wariyahayaga khadar cawil ismaaciil wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somalilan doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn dadweyne tiro badan oo kaga hortegay duleedka magaalada buuhoodle ayuu kula hadlay meel fagaara ah isagoo ka hadlay ujeeddada socdaalkiisa iyo sidoo kale cudurrada ka jira deegaanka oo wasaaradda caafimaadka somalilan uu sheegay inay wax badan ka qabatay anigu hadda halkan umaan iman istustus iyo siyaasad waxaan u imid waxyigelin maadaama ilaahay raxmaadkii shubay oo ilaahay abaartii naga dulqaaday nin 1,500 kilomitir ka soo wareegaya markuu ku hadla marayo ma xukuma dowladda etoobiya waa dowlad aanu saaxiib nahay isku wacan nahay way soo gurbatay soo maaha waa u mahadcelinaynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa qolada soodan ka soo wareegaysa etoobiya soo dhex maraysa inay naga daayaan war ma puntland baa 3 ambalaas ka joogtaa ma puntland baa 3 iyo 10 tiidu ka joogaan waxaan u malaynaya markay maseexalay shaqeeyaan hooyinkii marka roobku daayay ee aad bogsateen yimid waxay doonayeen inay cusbitaalka arkaan miyaynu ogolaannaa ilaahbaan ku dhaarshay wasaaradda caafimaadka somalilan waxay qabatay moogtii ilaahbaan ku dhaarshay moogtii khadar cawl ismaaciil telefishinka caalamiga ah universal buuhoodle
dowladda waddanka kuuriyada koonfureed ayaa markab kuwa ciidamada u dirtay meelaha ka baxsan xeebaha waddanka soomaaliya si ay uga qayb qaataan dadaalka lagula tacaalayo budhcadbadeeda soomaalida oo baryahan mar kale soo laba kacleeyey dibna u bilaabay weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga ee maraya meelaha ka baxsan xeebaha waddanka soomaaliya. markabkan laga diray waddanka kuuriyada koonfureed oo ciidamadoodu horeba ay uga qayb qaadanayeen howlaha budhcadbadeeda ayaa waxa uu yahay mid miisaankiisu uu dhan yahay 4,400 oo tan, waxaana saaran 300 oo ciidamo ah. ciidamada waddanka kuuriyada koonfureed ayaa waxay ka qayb qaadanayeen howlaha la dagaalanka budhcadbadeeda soomaalida laga soo bilaabo sanadkii 2009 iyagoo ka mid ahaa ciidamada caalamiga ah ee hawshaasi fulinaya. budhcadbadeeda soomaalida ayaa dhowaanahan dib u bilaabay howlihii ay ku ugaadhsanayeen maraakiibta shisheeyaha ee badaha maraya, waxaana la sheegayaa in wakhtigaasi intii ka dambeysay ay aada hoos ugu dhaceen howlaha ay sameynayeen budhcadbadeeda soomaalidu, laakiin baryahan dambe maadaama ay soo xoogeysteen waxaa taasi loo aaneynayaa inay isdhigteen maraakiibta maraya badahaasi. iminkana aan dib ugu noqonno wararka ugu waaweynaa ee naga soo gaadhayay magaalada muqdisho, khaasatanna wakhtigan iminka aynu ku jirno. fiidnimadii maanta ayaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar lagu dilay wasiirkii howlaha guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya Cabbaas Siraaji oo da'diisa lagu tilmaamay inuu ahaa 31 jir, isla markaasna ahaa wasiirka ugu da'da yar ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya. warar xogogaala oo iminka naga soo gaaraya magaalada muqdisho intii hawadaanu ku jiray ayaa waxa ay sheegayaan in israsaasayni ay dhex martay ciidamada ilaalada u ahaa wasiirka la dilay ee Cabbaas Siraaji iyo hanti dhowraha guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya. waxaana la sheegayaa israsaasayntaasi dhex martay labada ilaalo oo kala shakiyey inuu ku geeriyooday Allah u naxariistay wasiirka howlaha guud Cabbaas Siraaji. waxaana la sheegayaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya inaan wax dhibaato isaga soo gaadhin maadaama sida la tilmaamay isagu uu la socday gawaadhida rasaasto aanay karin. waxyaabaha kale ee ka soo kordha warkaasi iyo dilka wasiirka haddii alla yidhaahdo waxaanu idinku soo gudbin doonaa wararka iyaga dambe. ugu dambeyntiina marka tababarada la bixinayo wararka ayaa inta badan waxaa halhays ahaan loo isticmaalaa nin baa libaax cunay, ma aha war sidaa u weyn oo dee waa wax dhici jiray. haddiise la yidhaahdo nin baa libaax cunay taasaa war markaba dadku isu soo taagayaan. haddaba sheekadaa lafteedii baan maanta idiin hayaa. haddii intii hore sheekooyinka sidan oo kale ah aan anigu idiin kala turjumi jiray, markan waa af jooga looma adeego. duurka ku jira baanu ahay, dabadeedna shabeel badan baanu soo laynay, hargahoodii baanu kala soo baxnay, idla ciirsila annagoo hargeyla marayna oo ka baqayna ciidamada ugaadha. waa NFD buta weynaa la yidhaahaa. waa meel buta weyna la yidhaaho. meeshana waa meel caanahoo loo yaqaana libaaxa dadka ku cunaba. waddo iska socona yaa libaax noo hor fadhiista. halkaa gariirtuu keenay saaxiibkaygii waryaace waa layna hayaa maxaynu yaallaa buu yidhi dee wayna cunaya bahalka kan. hadduu ina cunayo aanu ina badbaadinayn maynu iska rawno oo haddaynu dili karno inagu cunno dee ordoo cun buu yidhi. geedka dushiisii baanu u baxnay markii aanu argagaxnay. isna waana hoos fadhiyaa. war bahalka waa ku boodaya. quwad baan leeyahay haddii ilaahay day. markaana dee nin dhallinyaraabaad ahayd. dhallinyaraana waan ahaado wade markaa ilaa dhowr iyo 40 xoogna ah. dabadeed waxaan ku idhi war ii diyaar garow, waan isku biimaynayaa bahalkaa hoosteena fadhiya, geed iga sarreeya intaa ka go-an baan halkaasoo kaloo rakaa fadhiya, isna rakada kaloo ku fadhiya.
dabadeedna laamo naga hooseeyo aan sida waa ku celinayaan baan laabay mid walba gooni baan u laabay meel bannaan baan ka sameeyey halkii baan iska shuba bahalkii dushaan kaga habsaday halkaa dushaan kaga soo boodi feedha barbarka ayaan kaga dhacay sidaa adigu sidaa ugu yar jiifay ee sidaa kor noogu soo eegayay yaan dusha kaga dhacay labada adinba waxaan kaga dhuftay feedhaha halkaasaan ku bireeyey wax walba maxaad sidataa markaa tooraydaa ayaad sidataa iyo bakoorad weyn ayaad sidataa wax huba waxa ii ah bakoorad iyo mindida geedkii u saareeyey warsoodeg waa diiday inuu soo dego geedkiibuu iska qabsado yag dabadeedna markaan ku hubsaday inuu biraysmay hilibkii waxaan ka goostay sanad intaan dooxay yaan waxaan calooshii ugu tegay beerkii aan dabcay inaan kala baxo xinjir iska fadhida beerkii calooshii oo dhiiga halkaa beerkii wuu bururay bahalkii miisaankaygu ku dhaca dabada markaasaa markii aan nairobi soo galay baa nin waliba gacanta lagoy wari axmadorsame dee wax la yidhi waad surugtay oo waad surugtay waxay dee horgo baad noqotaa la yidhi waa dabacday nin baa dabacday inaad cunto magacana halkaasaa markaan nairobi ku noqday haragegey orgo baad noqotay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga yaasiin baaldahab oo odaygaasi kula kulmay deegaanka oog ee bariga somalilan talo qolyihii odhan jiray abkay dowla dilow dad nool maas u daaha talo ninkan maxay odhan lahayn nin libaaxa cunayaa yimi waa hagaag ninkaa odayga orgamo sheekadiisa intaasi aan ku dhaafno qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii caalamka oo idinkala socoteen telefishinka universal stuudiyihiisa magaalada london waa cabdisalaan hereri oo idinku dhaafaya nabadgelyo